oo aad xoolo sii daysay oo intay barqada kuu dhergeen ay iska wada fadhfadhisteen waa markay noloshuba ugu qurux badantay yacni nolol ka qurux badan markay ziino tahay ilaahay baa qur-aanka ku sheegaya wuxuu leeyahay walakum fiiha jamaal xiina turiixuun wa xiina tasraxuun baa ilaahay yidhi qurux baa ku sugan baa alla yidhi markaa sii dareerinaysaan iyo markaa ay casarkii soo ekaysid ama soo mayracdaad xagga u soo jeedisa cadceeddu ay ku qabato iyadoo meel waliba barwaaqato xooliyo dhogor goosta ay ku hor socdaan waa qurux idan quruxdu noloshay ka mid tahay waxaan uga jeedaa dariskan salaadu waa waajib jamaaca inaad ku gudataa baana fiican ood jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummaddoo dhammi ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye cidina yay xoogsigan inta ugu yara lagu noolaan karo un markaaad soo qabato fadhiiso oo dadku markaa yuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handase la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhammi waa adduunka faanigaa bay ku tacalluqaan haye waxaasoo dhammi waa zakhrafat alxayaati addunya natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqoro ah dhammaanteed jaahilka ah nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin yacni waa caalla cala annaas dadka ku dul nool parasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxaa loo baahan yahay wuxuu weeyaan waaciduu lahu ma istatactum min quwati wa min ribaati alkhayl turhibuuna biha caduwa allahi wa caduwakum baa la yidhi oo kayfa tucud haddaad jahli iyo baqa idin wada hayo kayfa tucud haddaad jahli iyo faqri uu ku wada hayo su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan markaa noocaa haddii loo noolaado xanuunkaa faafayo cidda wayse loo heli maayo jahligaa faafayo cid nolosha horu maraysa la heli maayo noloshoo dhan baa aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal masaladaa u dhegtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kaloo ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labadaa masale ma isla fahmi karaysaa waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cunays odhan jiray armaakani kii aakhiro ku weydaariya idan may ahayn wax la'aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirta aanay qiimo badan u samaynaynin innaga laba mashkilaa meesha taalla dad badh yidhi aakhiraan ku soconnaa adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tidhi adduunyaan raadacaynaynaa dabeetana adduunkaanu iska bidhbidhsanaynaa meelaha duulduuloo kolba siyaaxad tag iyo daar yaroo cagaaran iyo intaa noloshaba intaa mooddo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay ahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan lee muntajiin ah markay noqoto conceptionna waxay ahaayeen dadka ugu yar wa hada huwa zuhdu la sheegayaana marka zuhdiga xaqiiqigiina waa kaa culamaa ilxadiid rag ka mid ah oo waaweyn oo salafkiyaba waxay odhan jireen nin ka midabaa wuxuu yidhi ardadiisi isagoo la dardaarmaya waryaadheen anigu walaalahay baan ku kor noolo wax la cunaa buu yidhi idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiin xoolo dhaqda waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaano ka mid ah muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata amase xadiidka ku xoogsada muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin deetana waxay odhan jireen idiin sheegi mayna xadiidka idinka waxna siiya mooyaane marka lacaga la siiyo ayayna xadiidka sheegi jireen marka ahlulxadiidka markay ka warramayaan raggay maagaan bay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto walaa brofessor baan ahay walaa ustaad baan ahay walaa waxa kan baan ahay malihi ma bannaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd
inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u manno sheegan markaa laa dawlad walaa shicib walaa qofna aanu u manno sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheego haddana isagu inuu dadka u manno sheegto cilmigiisa uu aakhiro iyo ajar ku helo mu'minka xaqa ahi markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo haddaa see la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisu ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynoo dhisaynu laanay waayo waxaynu soo saarrayba waynu cunay ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlakiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnayn muntij noqo mustahlikna ha noqonin wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso u horumariso westernkaynu maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u laanay maxaynu ugu weynay ama waxbaynan soo saarin oo caydha aynugu fillaatay ama wixii aynu soo saarraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahan yahay waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nebigu u dirayay yaa lahaa yuhuud baa lahayd yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada la lahaa meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cawf dulluuna cala suuq waa suuq ulyahuud suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la ii dhiibay wuxuu ahaa calaaqat اdunya biاlaakhira adduunku aakhiro xidhiidhku la leeyahy waa maxay xidhiidhku la leeyahy waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa طariiqii aakhiro loo marayey hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aad noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahy baryadoo aad iska dayso aad sooshiyaal wax weydiisanay cibaadaday ka mid tahy inaad isku fillaataa cibaadaday ka mid tahy qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahy qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahy in marka tusaale la soo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatee caydha ku nooli diinyariday ka mid tahy diinyariday ka mid tahy bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonnaa hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga gelin gacantaada goormuu gelayaa goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn marka isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaano waxa lagu ridaa inay biiso tahay iyo inay digir tahay calooshu waxay taqaanaa in vitamins ay hesho proteins inay hesho fats